subax wanaagsan dhageysto ku soo dhawow warka subax qodobada warka iyaga ku jira waxa qayb ka ah Mareykanka oo ra'iisul wasaare Rooble ku cadaadinayo inuu qabto shirka golaha wadatashiga qaran si looga hadlo arrimaha doorashooyinka booliiska Puntland oo garowe ku xiray dad ay ku eedeeyeen iibinta walxaha maanka dooriya wararka Soomaalida ka baxsan saraakiil ka tirsan booliiska Turkiga oo Giriiga lagu qabtay walxaha qarxa iyaga oo sida waa 5 bisha 12 sanada 2021 maalinimo axad ah dhanka kale waa 1 bisha 5 sanada 1443 hijriyo warkayga subaxnimo waxaynu ku bilowno sheeko wareedkeena ugu horeeya Mareykanka ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Rooble ku cadaadinayo inuu qabto shirka golaha wadatashiga qaran si looga hadlo arrimaha doorashooyinka Mucaradka ayaa ka doodaya in la dhiso golaha kumeel gaarka ee qaranka sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo aad ugu dhow kulamada ay ku yeelanayaan Muqdisho marka la fiiriyo maalmihii ugu dambeeyay soo imaatinkooda dowladda Mareykanka ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxay ku cadaadinaysaa in shir degdeg ah isugu yeero golaha wadatashiga qaranka oo ka kooban ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble shanta madaxweyne dowlad goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxyaabaha ay ugu wada hadlayaan waxa kamid ah boobka lagu sameeyay kuraas kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka ka dhacay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Baydhabo Galmudug iyo Koonfur Galbeed xukuumadda Washington kuma qanacsana qaabka dabacsan ee wasiirka koobaad ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu maareynayo hanaanka doorashooyinka yeedaha la xiriira in isdabamarin lagu sameeyay kuraasta qaarkood lagana hor istaagay shakhsiyaad magac ku leh baarlamaanka dhexdiisa warbixinada ayaa inta ku daraya in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay ka soo horjeedaan kulamada dowladda Mareykanka ay wado waxayse wasaaradda Mareykanka uu cadaadis ku saaraya wasiirka koobaad ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo 1 May 2022 dusha saartay مسؤولية الدورشة إي أمنية إلى حلكسة أيام مستقبل وشجعي إن لفت جراني قرقر الشجعين إن قرشياش وده سفر كا أيقوا ما بيح دوران ذلك التركي كا سيقوا باقصدان سفر كا أما الشركة لجوا ده إن مجالات مقدشة وإعلامية وزير كوبادي حكومة الصومالية مداخل الدولة قبائلية galmudug iyo Hirshabeelle ayaa ku sugan magaalada Muqdisho waxaana ay wadaan kulamo gaargaar Mareykanka ayaa cadaadis iyo culays xooggan waxa uu saaraya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble hore u ballan qaaday in uu qaban doono doorasho loo dhan yahay Mucaradka ayaa ku doodaya in la dhiso gole kumeel gaar ah oo qaran ka badbaadiyo waa sida ay hadalka u dhigeen arintaasi ayaa dhalisay shakiga iyo cabsida Mareykanka inuu soo xoogeysto sida ay muujinayaan warbixinada golaha ayaa talaabadan waxay u cogsadeen si looga badbaadiyo dalkan boobka lagu hayo kuraasta siyaasadeed kuraasta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya si dalka uusan burbur u gelin Mareykanka ayaa kamid ah dalalka bixiya dhaqaalaha doorashada ku baxaya waxaana Washington dhowr jeer ay sheegtay in loo baahan yahay in la dardargeliyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waqtiga guddiga doorashooyinka iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya u qabteen in doorashada ay ku dhacayso oo ah December 24 ugu dambeyn ayaa u muuqda in aysan qabsoomi karin marka la eego kuraasta qabsoomay daaha muuqda iyo cabashooyinka ka soo yeeraya kuraastii hore loo doortay kalena wasiirka koobaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa ka wada hadlay doorashooyinka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan gaar ah la qaatay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ay ka wada xaajoodeen qabsoomida doorasho lagu kalsoon yahay qoraal kooban oo soo dhigay bartiisa Twitterka Cumar Cabdirashiid waxa uu ku sheegay in kulanka uu ahaa mid ka dhashay casuumaad uu wasiirka koobaad xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu sameeyay waxa uu rajo ka muujiyay isfahamka laga gaaro doorashada Soomaaliya oo buuq iyo cabasho badani ay ka dhasheen kuraasta kooban ee lagu doortay magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug wuxuu ku maadsan yahay ayuu yiri wasiirka koobaad xukuumadda federaalka Soomaaliya casuumaadda uu noo sameeyay aniga iyo wasiir hore Cabdiraxmaan Caynte xaqiiqdii doodaha doorashada marka qaar waxa lagu gaaraa isfaham ayaa uu yiri Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake
ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo maalmo ka hor Muqdisho soo gaaray ayaa bilaabay kulamo siyaasadeed oo la xiriira arrimaha doorashooyinka dalka kadib cabasho badan oo ka soo laabatay kuraasta doorashadooda lagu qabtay meelo ka mid ah dalka Soomaaliya. markan haddii aynu eegno Hirshabeelle gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa dowlad goboleedyada uga digay in dalka ay geliyaan qalalaasa doorasho. dadka ugu badan ee dooranaya xildhibaanada golaha shacabka ayaa uu sheegay inay ku nool yihiin gobolada dalka. dowlad goboleedyada waxa uga digayaa inay cadaadis saaraan ergada beelaha ay ku dooranayaan kuraasta ku matalaysa baarlamaanka. gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Sheekh Cismaan oo la hadlay telefishinka Soomaali Cable waxa uu sheegay in doorashada dalka uu kala qaadayo 3 qaybood. qaybta koowaad waxa uu dusha ka saaray mas'uuliyadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya oo la wareegay mas'uuliyadda amniga iyo doorashooyinka Meel 2022. qaybta labaad madaxda maamul goboleedyada oo ah meelaha ugu badan ee lagu dooranayo kuraasta ugu badan xildhibaanada golaha shacabka halka qaybta saddexaad oo dusha ka saaray gudiyada hirgelinta doorashooyinka heer federaal dowlad goboleedyada iyo xalinta khilaafaadka. tan dowlad goboleedyada waxa uu ka digay inay faragelin ku sameeyaan madaxda dowlad goboleedyada ergada dooranaysa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. Sheekh Cismaan ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in madaxda dowlad goboleedyada laga doonayo kaliya inay sugaan mas'uuliyadda amniga iyo ilaalinta nidaamka doorashada wixii howshaas la xiriirna uu wado guddiga doorashooyinka qaabilsan ee federaalka iyo dowlad goboleedyada. odayaasha dhaqanka iyo beelaha leh kuraasta ayuu ka dalbaday in si cadaalad ah ay u soo doortaan qofka ku matalaya baarlamaanka 11aad. sidoo kale maamul goboleedyada waxaan leeyahay shacabka intiisa badan waxay jiraan maamul goboleedyada ayagana waxaa laga rabaa inaysan ku sifoobin wax dalka Soomaaliya maanta dhibaato gelin kara. waxaan kaloo rabaa inaan u sheego maamul goboleedyada hadday ku sameeyaan shacabkii matalaadooda ay boob ku sameeyaan waxay boobayaan kuraasta ay ku fadhiyaan waaye kuraasta maqan ma ah dadka ay leeyihiin ma ah. waxaan ognahay maanta maamul goboleed conflict oo ka jirin ma jirto ayadoo abaaro jiraan oo maxay ahayd dhibaato badan jirto oo conflictigaas kala qaybsanaanta maamul goboleedyada ama siyaasadaysan ay ka jirto hadday ku daraan inay boob qaawan ay muxuu ahaay u tafaxaytaan waxaan isleeyahay waxay boobi doonaan oo dhibaateynayaan kuraasta ayaga ay ku fadhiyaan madaxweynaha oo ugu digataas madaxweynimada ay ku fadhiyaan ay boobayaan. waa uu sii hadlay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed waxa uu fariin gaar ah u diray gudiyada maamulaya doorashooyinka heer federaal heer dowlad goboleed iyo kana xalinta khilaafaadka. waxa uu tilmaamay inay yihiin dad dhalinyaro ah kana fiirsadaan mustaqbalkooda maadaama si cadaalad loogu aaminay inay u hagaan doorashooyinka. tan kale gudiga doorashooyinka ayaan waxaan rabaa inaan halkan baaq ugu diro waa niman dhalinyaro ah runtii aqoon leh loo doortay dalkan inay samata bixiyaan inay maanta dalkii ay geliyaan maxay ahayd muxuu ahaay dhibaato geliyaan oo colaasoo kale geliyaan oo waxaan sharci ahayn ay ku shaqeen iyaga laftooda waan ugu digayaa dhalinyarada tihiin dalkaanaad bixi mustaqbalkiisa wax ka rabtiin waxaan leeyahay arrintaasi ka digtoonaada waxa la idinku dhaariyey ee muuqda sharciga raaca. waxaan rabaa marka xildhibaanada golaha shacabka ee doorashooyinkooda la qabtay waxaa ka soo laabtay cabashooyin badan. dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo galmudug ayaa ugu badan halka ugu badan ee cabashooyinka ka yimaadeen waana goobaha lagu qabtay doorashooyinkooda Baydhabo iyo Dhuusamareeb. doorashada golaha shacabka ee dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo galmudug waxaa ka taagan cabasho iyo eedo la xiriira daahfurnaanta tartanka labada madaxweyne dowlad goboleed ee galmudug iyo koonfur galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen iyo Axmed Qoorqoor ayaa ku soo baxay doorashooyin dhiig ku daatay oo ka dhacay Baydhabo 2018 iyo Dhuusamareeb 2020 kuwaas oo taageero ciidan iyo hub ka helay fila Soomaaliya. wararka Soomaalida ka baxsan hadii aynu eegnana saraakiil ka tirsan booliiska Turkiga ayaa Greega lagu qabtay iyagoo sida walxaha qarxa Greega iyo Turkiga ayaa ka dhaxeeya muran xoogan oo ku saabsan xadka waxaana dhowr mar dhacday in dad iyagu doonaya inay Greega u tallaabaan Turkiga dib loogu soo celiyo Greegu soo celiyo marar badan ayaa la sameeyay isku day iyo dadaalo labadaas si dhinac lagu xalinayo balse ilaa haatan ma suurtagelin in Greega iyo Turkigu ay si caadi ah
isaga gudbaan dadka taas oo marar badani ku adkaata tanina waxay imaanaysaa xilli weliba dadka qayb ahaan Greega dhibaato badani ay ka qaabilayaan inay kaga tallaabaan Turkiga haddana ayaa saraakiil ka tirsan booliiska Turkiga lagu qabtay dhanka iyo Greega iyaga oo sida walxaha qarxa dawladda Turkigu faahfaahin rasmi ah weli kama aysan soo saarin saraakiishaasi waxay ahaayeen halka ay u sideen walxaha qarxa dhanka kale Greegana si faahfaahsan weli ugama warbixinin balse waxa la filayaa inay xogo dhameystiran ka soo saaraan qabashada saraakiishaasi booliiska